kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkeena ee gundhiga warar soo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada daacad oo wadaadka u xiran dawladda Muqtaar Roobo oo ku dhawaaqay in ay qaarajeen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab qaab nooca ayuu u dhacay howlgalkaasi maxaa khasaaraha ka dhashay wadageysan doontaan warbixin walba oo ku saabsan howlgalka halka ka dhacay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta waxa lagu baaqay in si toos ah ula hadlo dhigiisa Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya maxay tahay xilligan faa'iidada dawladda Kenya ay ugu jirto in Soomaaliya si toos ah ula hadasho muranka badda ee hadda maxkamadda hortaala xog dhameystiran ayaan kaga hayaa xiisad ka dhalatay calanka Soomaaliya oo wali ka taagan qaybo kamid ah deegaanada Somaliland waa kubeed meelaha ay ka jirto xiisadaasi warbixino gaar ah ku saabsan ayaa daawan doontaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay ku halaagmeen shirqool ay maleegayeen qasaaraha ka dhashay dhigayso doontaan xildhibaan dhakool oo bil ka hor xabsiga la dhigay ayaa maanta la sii daayay kadib markii uu u gafay qarannimada Somaliland sababta loo xiray iyo waliba waxa uu ka yiri in markale xorriyadiisu uu helana warka ayaad ku daawan doontaan Kenya waxay ka walaacsantahay isbahaysiga xoogan oo abuurtay madaxweyne Farmaajo xilli Kenya ay walwal badan ay ka muujinayso in dacwadda badda Soomaaliya ay ku guuleysato madaxweyne Muuse Bixin waxa uu jawaab ka bixiyay sababta uu beeshiisa ugu tahay xilalka ugu sareeya maamulka Somaliland oo daawan doontaan warbixino ku saabsan khilaaf weyn waxa uu ka dhex taagay baarlamaanka Somaliland waxa kale oo maqli doontaan gabagabadana Maxamed bin Salman dhaxal sugaha Sacuudiga waxa uu fasaxay in qamrada laga isticmaali karo dalka Sacuudi Arabiya daawadayaal qodobadaasi kuba kale aad ku daawan doontaan wararkeena ugu waaweyn ee maanta daawada hadaad janaalkan ku cusubta fadlan subscribe dheh qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada waxaa soo gudagalaynaa wararkii ugu waaweyn ee hordhici aad maqasheen ayagoo faahfaahsanayaan dul istaagi doona ciidamada wadaadka u xiran dawladda Soomaaliya Muqtaar Roobo Abu Mansuur waxay shaaciyeen in hogaamiye sare ka tirsan ururka Al-Shabaab inay ku qaarajeen howlgal ka dhacay deegaanada ah hadda ay ku sugan yihiin ee Boqol hoosaga maleeshiyada daacad oo wadaadka u xiran dawladda ee Muqtaar Roobo Abu Mansuur ayaa goordho waxa ay sheegeen in dileen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda mintidiinta Al-Shabaab maleeshiyada ayaa waxa ay sheegeen in weerar gaadma ay ku qaadeen xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku safrayay deegaanka la yiraahdo Kalanjeer ee gobolkaasi Boqol halkaas oo ay dhowr maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen sida uu sarkaal u hadlay ciidankaas maanta warbaahinta uu sheegay kooxda caaro ayaa waxa ay shaacisay in dadka ay dileen uu ku jiro Maxamed Xasan Barwaaqo oo ahaa madaxii zakawaadka ee kooxda Al-Shabaab ee gobolkaasi ma jirto ilaa hadda cid si madax banaan u xaqiijin karta sheegashada kooxda Roobo sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaan wali wax jawaab ka bixin dhacdadan ay kooxda Muqtaar Roobo ay sheeganayaan in ay dileen xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kooxda la yiraahdo caaro ee Roobo ka abuuray ayaa waxa ay saldhig weyn ay ku leeyihiin deegaanka la yiraahdo Abal oo dhowr kiiloomitir u jira magaalada Xudur ee gobolkaasi Boqol waxaana halkaas ku sugan ku dhawaad 500 oo kamid ah maleeshiyada Muqtaar Roobo laguna ilaaliyo dhaqaale sanadna lagu siiyo halkaasi ciidamadan oo aad u qalabeysan ayaa wali ku sugan fariisimaha dagaalka iyo waliba jiidadka hore ama aaga hore ee dagaalka kuwaas oo ku dhawaadna 10 sano hore kaga sugnaa halkaasi Muqtaar Roobo Abu Mansuur ayaa la dagaalamay ururka Al-Shabaab tan iyo markii uu ka soo goostay ururkaasi janaalkeena ayaa ogaaday in ciidanka Abu Mansuur ay helayaan taageero caalami ah oo dhan kasta oo ay siinayaan dawladaha Mareykanka si aad hore ugu daawateen warbixinadii aan idin soo bandhignay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta waxa loogu baaqay in si toos ah ula hadlo dhigiisa Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka iyo waliba xiisada diblomaasiyadeed ee labada dawladood u dhaxeeya wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Kenya Senator Moses Wetangula oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inuu ugu baaqayo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta in si toos ah uu xiriir ula sameeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si loo xaliyo khilaafka diblomaasiyadeed iyo waliba muranka xuduudda badeed ee u dhaxeeya labada wadan mas'uulkaas waxa uu sheegay in deeqaha la siiyo Soomaaliya ee kaalinta ugu weyn ay ka qaataan dhaqaalaha Kenya isla markaana loo baahan yahay in la joojiyo khilaaf kasta oo horseedi kara jahwareer ku yimaada ganacsiga labada wadan ee Soomaaliya Kenya ayuu yiri Wetangula wasiirka hore arrimaha dibadda ee Kenya waxa kale oo uu tilmaamay in qarash bixinta Soomaaliya ay ka timaado iyada oo Kenya uu ka imaado hay'adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan qaramada midoobay safaaradaha oo ay ku leeyihiin xarumaha ugu badan magaalada Nairobi Kenya waxa uu sheegay in dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya ku baxana ayadu ay qayb
faa'iido ay ku qabto. wasiirka hore arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Wetangula waxa uu cadeeyay in qaar ka mid ah lacagaha kaashka ah ee loo diro Soomaaliya ugu dambeyntii ay kusoo gabagabowda dhaqaalaha Kenya. waxa kale oo uu tilmaamay Wetangula in Soomaaliya iyo Kenya ay casharo badan ay ka baran karaan sida dowladda Tanzania iyo waliba Malawi ay u xaliyeen khilaafkooda xuduudda ee labadaasi wadan kadib markii labada madaxweyneba ay isla garteen in guddi loo xil saaro ay xalinta khilaafkan. sidoo kale waxa uu xusay khilaafka noocan oo kale ah oo la xaliyay markii asaga uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda, markaas uu sheegay in si toos ah ula hadlay la taliyay madaxweynihii hore ee Kenya Masar Kibaki iyo waliba in xiriir uu la sameeyay Soomaaliya isla markaana labada wadanba ay gaareen heshiis ku aadan arrimaha hadda la isku haysto. qaybaha kale ee wararkeena ku jirana daawadayaal waxaa kamid ah xiisad ayaa ka dhalatay calanka Soomaaliya oo deegaano kamid ah Somaliland lagu arkay iyadana ciidanka booliiska Somaliland ay rasaas bareer ay ku fureen dadka calanka Soomaaliya waday. ciidamada maamulka Somaliland ayaa saacadihii la soo dhaafay dad shacab ah waxay ku rasaasayeen deegaanka liira dhambal xagar oo hoostaga degmada Caarigaabo ee xarunta gobolkaasi Sanaag. shaqaaqadan ayaa ka dhalatay kadib markii dadka deegaanka calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka taageen halkaasi. saraakiisha booliiska Somaliland waxa ay sheegeen in shacabka ay ku amreen inay dejiyaan calanka Soomaaliya balse taa ay ka biyadiideen dadweynuhu kadibna ay keenteen ciidamadu ay deegaankaas rasaas nool ay u adeegsadaan dadka halkaasi ku sugan. rasaas ay furan ciidanka maamulka Somaliland ayaa waxa ku dhaawacmay dhowr qof oo rayid ah kuwaas oo kamid ah dadkii deegaanka ee halkaas ku suray calanka Soomaaliya. sidoo kale wararka ayaa waxay intaa ku dareen in xiisada ka dhalatay arintan ay haatan ka taagan tahay qaybo kamid ah gobolkaasi. ma jirto wali wax rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland ee ku aadan dhacdadan iyo waliba xiisada halkaasi ka taagan. deegaanada Somaliland ayaa waxa laga ogol yahay kaliya calanka Somaliland lagamana ogola calanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay dadka halkaasi ku nool ay la kulmeen cadaadis xoogan ay kaga imaanaya dhanka ciidamada Somaliland. isla wararka la xiriira Somaliland intaanan ka bixin xildhibaan Dhakol oo kamid ah xubnaha baarlamaanka iyo maanta xabsiga laga sii daayay kadib markii xildhibaankaas ay toddobaadyo ka hor xabsiga ay dhigeen ciidanka booliiska. wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in xukuumadda Muuse Biixi ay xabsiga ka sii daysay xildhibaan Dhakol oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland. xildhibaan Dhakol ayaa ciidamadu ay booliiska Somaliland ay ka soo qabteen gurigiisa magaalada Hargeysa waqti habeenimo kadib markii 2 maalmood markay ka harsanad xuska 18 May oo maalinta Somaliland uu ku tilmaamay maalin madow. xildhibaanka ayaa muddo ka badan 1 bil ku xirnaa xarunta dembi baarista magaalada Hargeysa kadib markii ay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay diiday in kiiskiisa ay furto iyadoo ay sheegtay inaysan awood u lahayn dhageysiga dacwadda xildhibaankan loo haysto. siideynta xildhibaan Dhakol ayaa waxa ay daba socotay kadib markii dhawaan ahlan xubno ka tirsan beeshiisa kuwaas oo raali gelin ka bixiyay gafka ay sheegeen in xildhibaanka u geystay qarannimada Soomaaliya. xildhibaan Dhakol ayaa sidoo kale ka laabtay didmada ee kaga hor yimid xuska 18 May wuxuuna go'aansaday in raali gelin uu ka bixiyo hadalkaas bulshada reer Somaliland. sidaas ayaana la xaqiijiyay inay ku timid siideynta xildhibaan Dhakol oo ugu dambeyn mar kale xorriyadiisa dib ku helay. wali waxaad daawanaysaan wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya janaalkeena ayaad ka daawanaysaan. qaybaha kale ee wararkeena ku jirana saaxiibayaal waxaa kamid ah Kenya waxay walaac xoogan ka muujinaysaa isbahaysiga xoogan uu sameysanayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. warbixintan ayaan markan si gaar ah u eegnaa. dowladda Kenya ayaa waxa ay ka walaacsan tahay isbahaysiga xoogan ee Soomaaliya ay ka abuurtay gobolka taas oo horseedi karta in Kenya ay gooni u noqoto gobolka isla markaana la wiiqo awoodida iyo saameynta ay ku leedahay gobolka. Kenya ayaa horey u rumaysneed in ay Soomaaliya ay saaxiib dhow la noqoto dalalka Eritrea iyo waliba Ethiopia ay sidoo kale ay sheegteen taas ay qatar ay ku tahay. wargeydka Daily Nation ee Kenya ayaa dalkaasi Kenya waxa uu sheegay in walaaca ugu badan ee Kenya markan ay muujinayso isbahaysiga in sidoo kale ku soo biirto dalkaasi Tanzania. Kenya waxa ay sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay kulanka dhawaan dhaxmaray madaxweynaha dalkaasi Tanzania Joseph Magamba iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dowladda Kenya ma sheegin in halka uu ka dhacay kulankan iyo waliba waxyaabaha looga hadlay. si kastaba xukuumadda Nairobi waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Farmaajo uu xiriir dhow la leeyahay Eritrea, Ethiopia una daneynayo in Tanzania lagu soo daro isbahaysiga gobolka si ay Kenya ay u gasho go'doon. Tanzania iyo Kenya waxa sidoo kale ka dhaxaya muran dhinaca badda ah waxaana hadii ay Soomaaliya iyo Tanzania bay ku guuleystaan
Kenya waxay noqon doontaa dal dekad leh laakiin aan lahayn meel ay u soo maraan maraakiibta markastana waxa ay ku qasbanaan doontaa in ay dalalka Soomaaliya iyo waliba Tanzania ay raaligelin weydiisato si ay maraakiibta u soo maraya ama cuntada u sida ay u keenaan dalkaas Kenya biyaha labada dal ee Tanzania iyo Soomaaliya haddii Kenya lagu guuleysto labadaasi kiisaska la xiriira dacwadda dhanka badda ee labada dowladood ay ku guuleystaan oo Soomaaliya iyo Tanzania waxay ku qasbanaan doontaa in dalalka Soomaaliya iyo Tanzania ay fasax weydiisato si ay maraakiibta u socda Mombasa ay u maraan biyaha una gaaraan dekada Mombasa waa halka ugu weyn ee Kenya ay ku soo xirtaan maraakiibta cuntada u sida dhaqaalaha ugu badan ee Kenya uu ka soo galo dekada Mombasa ku taala qaybihii ugu dambeeyay gabagabada warkan ayaa daawadayaal soo gaarnay warbixinta ugu dambeysay warkan aan ku soo gabagabeynayna Maxamed bin Salman dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya waxa uu fasaxay qamrada in laga isticmaali karo wadankaasi Sacuudi Carabiya mas'uulkan Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu ajaanibta مسؤولين السعودية العربية ayaa waxay ajaanibta doonaya in dalkaas ay maalgashato ku sameeyaan ay sheegeen inuu fasaxi doono isticmaalka qamrada ee dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman oo dhaxal sugaha Sacuudiga waxa uu sheegay in wadanka Sacuudi Carabiya markii hore laga ogolaan isticmaalka qamrada laakiin hadda ajaanibta doonaysa in wadankaas ay maalgashi waliba ganacsi ay ka sameeyaan ay u fasaxi doonaan intay ku sugeen Sacuudiga ay isticmaalaan qamrada gudaana wararka aad ka daawanaysan janaalkeena gundhiga wararka daawada halkaas aan ku soo gabagabeynaa daawada hadaad ku cusubta janaalkan subscribe qaybta hoose comment-gana nugula wadaag aragtidaada